maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka saaka waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo loogu baaqay in uu degdeg isku casilo iyo hay'ad ka shaqeyso arrimaha diblomaasiyadda caalamka oo fadhigeedu yahay Mareykanka oo dacwad u gudbisay dowladda waddanka Mareykanka uu hogaamiyay madaxweyne Donald J. Trump taasoo loogu sheegayo in baaritaan musuqmaasuq lagu sameeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qoyskiisa dhacdadan oo yaab iyo amkaag leh waxaa ku lug leh Soomaali ku sugan dalka Mareykanka haddaba waxaad la wadaagi doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyay silsiladda laga dalbaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid noqon doono xaalad car iyo wir ah oo ka taagan Puntland Xasan Shira Abgaal oo mar kale afka furtay shalay si aan hore loo aragna kaga hadlay arrinta ku aadan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanada maamulka Puntland haddaba maxaa ka jira in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay qorshe ay doonaysay hub iyo sidoo kale sanad ciidan oo xoog leh inay ku geyso garoonka diyaaradaha ee magaalada Galdogob barnaamijkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa maamulka Puntland garoomada iyo sidoo kale dhulka deegaanadiisu waxa uu ka mamnuucay in uu soo galo mas'uul laga soo magacaabay dhinaca magaalada Muqdisho ama dowladda federaalka Soomaaliya mas'uulkaasi ha noqdo siyaasi ama sarkaal ciidan amarkan ayaa soo baxay number 2 gaari tiknika ah oo ay wataan maleeshiyaad sharci darro ah kuma samayn karaan gobolada Puntland wax dhaqdhaqaaq ah ama isku socda dhaqdhaqaaqyada ciidamada Puntland waxaa loo xilsaaray saraakiisha xukunta si ay u xakameeyaan lambar 2 waxaa la mamnuucay in ciidamo maleeshiyaad ah Puntland laga dhex qorto ciddii qorata iyo maleeshiyaadkaas waxaa laga qaadayaa tilaabo sharci ah lambar 3 dadka magacaaban ee darajooyinka iyo xilalka ka haya dowladda federaalka ah oo raba inay qas iyo dhibaato ka abuuraan Puntland kama soo geli karaan dhammaan xuduudaha iyo garoomada Puntland lambar 4 barnaamijkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa galmudug maxaa ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa halkaas ku sugan madaxweynaha maamulka galmudug oo si rasmi ah madaxa ugu dhiibtay reerka uu ka soo jeedo musharaxa filla Soomaaliya ee dhisayso muxuu ahaa kulanka ay aqoonyahanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee beeshaasi saacad u leeyahay madaxweyne qorqor maxalay ayuu si rasmi ah u wareejiyay xilkiisa madaxtinimada maamulka galmudug barnaamijkeena ayaanu ku soo qaadi doonaa soo dhawaad saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo bir muuqaalka like aragtada wax dhisiisan ugu leeyahay qaybta hoose ee faalada dadweynaha aanu ku bilaawno wararkeena madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa loo soo jeediyay in uu degdeg isku casilo iyadoo dhinaca kale tan dacwad musuqmaasuqtii ugu xooganeed laga gudbiyay waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud koox u dhow ay ku lug lahaayeen eedeyntii Mareykanka koox Soomaali ah ama jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka ugu soo jeediyay ah in lagu laayahay lacag loogu talagalay COVID-ka oo 250 milyan oo dollarka Mareykanka ah eedaasi fuustadeeda ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo soo riixay iyada oo Robert Strait in la yiraahdo oo hay'ad Strait Global markaasi diblomaasi ka shaqeyso ayaa dacwadan eedda madaxweyne xasan sheekh maxamuud loo jeedinayo qayb ka qaadanaya laakiin kaalinta ugu weyn waxa qaadanaya koox Soomaali ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku eedeynayo in dhaqaalihii Soomaaliya uu u qoys yeelay koox gaar ah yacni inuu qoyskiisa u gaar yeelay dhaqaalihii loogu talagalay in Soomaaliya lagu caawiyo kaasi oo jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka ku sugan ay u soo marin jireen hay'adaha deeq-bixiyaasha Mareykanka sida hay'adaha taageera dowladda federaalka ah ee Soomaaliya haddaba waxaa la leeyahay dacwadan culus ayaa laga gudbiyay waxaana ciwaan looga dhigay dacwadu markaasi marka laga soo tago bayaanka soo baxay ee ay soo saartay global ama Strait Global Diplomacy in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu iscasilo marka Mareykanka ayaa buuq looga furay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo hadda isagu laftirkiisu muddaxileedkiisa lagu muraysay haddaba warkan cusub ee yaab kale ee soo baxay madaxweynaha Soomaaliya oo loo jeedinayo inuu iscasilo eedda ku aadan in 250 milyan oo Mareykanka laga dhacay in
la sheegayay inay ku lug lahaayeen xubno ka mid ah qoyska madaxweyne xasan sheekh ama xubno madaxweyne xasan sheekh u dhow oo markaasi soomaalida maraykanka joogta ka mid ah ayaa ah warka ugu weyn ee hadda warbaahinta soomaalidu ay aad u qorayso. haddaba arrintaada ku aadan tallaabadan yaab kale ee soomaalida maraykanka ay qaadeen iyo sidoo kale in arrintan ay ku lug leeyihiin hay-ada caalami ah oo madaxweynaha jamhuuriyaddu culayska lagu saarayo iscasilaadana looga dalbanayo arrintaada hoos ayaad noogu reebi kartaa. wararka waxyaaba ugu waaweyn lagu eedeynayana musuqmaasuqaas ugu weyn yahay. waa tahay warxyada kale barnaamijkeena ku jira haddaan fiirino puntland xaalad car iyo wir ah ayaa ka taagan. waxa ay soo saartay awaamiir ay ku sheegayso in siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada puntland ee xilalka uga magacaaban dowladda federaalka soomaaliya haddii ay noqon lahaayeen saraakiil ciidan ama siyaasi in aanay cir ama dhul aysan ka geli karin deegaanada puntland oo mamnuuc ay ka tahay. arrintan waxay timaaday ka gadaan markii la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya isku dayday in hub aad u culus oo uu sito jenaraal jimcaale taakar laga dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada galdogob. waxaa degniintii ugu dambeysay la siiyey diyaaradaha soo qaadayo mas-uuliyiintaasi. sidoo kale magaalada gudaheeda xaalad taagtaaga ayaa ka taagay. waxaan rabaa inaan idila wadaago awaamirta culus ee puntland ay soo saartay iyo siyaasiga xasan shir abgaal oo ka caruuday tallaabadaas. isaguna afka ayuu furtay, weerar kulul ayuu ku qaaday madaxweyne siciid cabdullaahi deni. laakiin waxaa cajiib ah in madaxweyne deni uu garab lama filaana ka helay siyaasiyiinta mucaaradka ee puntland qaarkood sida ninka la yidhahdo guuleed saalax. wuxuu leeyahay xasan sheekh kalama yaqaano ama isku mid ayay u yihiin mucaaradka puntland iyo xukuumadda puntland. wuxuu leeyahay ujeedkiisu waa in puntland uu burburiyaa oo wiilasha reer puntland uu qoryaha isugu dhiibaa. marka waxaan rabaa inaan idila wadaago awaamirta puntland ka soo baxday abgaal oo si aan caadi ahayn uga falceliyey oo dhinacyadu jawaabahooda loogu macnaynaya cali iyo wir xaalad ah iyo siyaasigan oo ka mid ah xisbiga uu hogaamiyo musharax madaxweyne cabdi faarax shidon saacid oo hibad qaran la yidhaahdo ayaa rabaa inaan idila wadaago siyaasigan guuleed saalax. isaguna arrintan ayuu ka hadlayaa. saddexdaas cod ayaa rabaa inaan qaybta dambe idinkula wadaago laakiin aan idin guud maro wararkii ugu dambeeyey xaaladda kale ee dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre wuxuu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb oo habeennimadii xalay ah ku hoyday. halkaasi waxaa ka taagan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog leh. wararka ka imaanayana waxay sheegayaan in ugu dambeyntii madaxweyne qorqor uu toos isugu dhiibay dowladda federaalka soomaaliya una go'aansaday in uu deg deg markaasi kursiga ku baneeyo dowladduna ay sii maamulato holaha doorashada ee maamulka galmudug. xalay wuxuu la kulmay siyaasiyiinta waa qorqore siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada beesha sacad isagoo u sheegay in kadib dagaalkii dhex maray dhinacyada uu ugu adkeynayay in beeshaasi ay hogaamiso kursiga looga arrimiyo maamulka galmudug ugu dambeyntii in uu aqbalay in musharaxooda dhiibaan shuruq la siiyo kursiga galmudug maadaama dowladda federaalka soomaaliya ay wadato. isaguna arrintaasi u aqbalay. xalay kulan lagu macneeyey in uu kursiga galmudug uu ugu wareejiyey reerka uu ka dhashay dhiibaan shuruq ayaa ka dhacay magaalada markaasi dhuusamareeb ee caasimada galmudug. wasaaraha ayaa xalay iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaaday magaalada dhuusamareeb wuxuu u tegey sidii qalinka loogu duugi lahaa qorshaha kala wareega ee maamulka galmudug sidii lagu kala wareegi lahaa oo mahasalaad marka hore uu kasoo shaqeeyey haddana saxiixa ugu dambeeyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa iska leh oo arrintaas. bismillaahi raxmaani raxiim. war saxaafadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 6 2026 war saxaafadeedka wuxuu ka soo baxay shir lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda amniga iyo DDR-ta oo ay isugu yimaadeen guddiga amniga dowladda Puntland oo ay weheliyaan wasaaradaha xiriirka la leh amniga sida wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda warfaafinta. waxayna soo saareen qodobadan hoos ku xusan. number 1 gaari tiknika ah oo ay wataan maleeshiyaad sharci darro ah kuma samayn karaan gobolada Puntland wax dhaqdhaqaaq ah ama isku socda. dhaqdhaqaaqyada ciidamada Puntlandna waxaa loo xilsaaray saraakiisha xukunta si ay u xakameeyaan. number 2 waxaa la mamnuucay in ciidamo maleeshiyaad ah Puntland laga dhex qorto. ciddii qorata iyo maleeshiyaadkaas waxaa laga qaadayaa tilaabo sharci ah. number 3
dadka magacaaban ee darajooyinka iyo xilalka ka haya dowladda federaalka ah oo raba inay qas iyo dhibaato ka abuuraan Puntland kama soo geli karaan dhammaan xuduudaha iyo garoomada Puntland. Lambar 4 cid kasta oo ku hawlan fal burcadbadeed waxaa laga qaadayaa tilaabo sharci ah ayaga iyo qalabka ay ku hawlgalayaanna ciidamada ammaanku waxay ku amran yihiin inay la wareegaan. Lambar 5 dhammaan Puntland waxaa laga mamnuucay tahriibta haddaba sida xal waara loogu helo waxaa la xirayaa xafiisyada dadka dhoofiya iyo dooyaha lagu dhoofiyo ciddii lagu qabto ayadoo tahriibaysa ama dad tahriibinaysa waxaa laga qaadayaa tilaabo ammaan oo waafaqsan sharciga. Lambar 6 waxaa reeban in gudaha Puntland lagu qabto shirar lagu waxyeeleynayo ciddii ku qabatana tilaabo sharci ah baa laga qaadi doonaa. waxaan dowladda federaalka uga digaynaa hubka sharci darrada ah oo ay ku soo daabulayso gudaha deegaanada Puntland kana soo dejinayso garoomada. sidoo kale waxaan uga digaynaa inaysan diyaaraduhu soo qaadin hub sharci darro ah. diyaaradii soo qaada hub sharci darro ah waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharci ah. waxaan dowladda federaalka uga digaynaa hubka sharci darrada ah oo ay ka soo dejinayso oo ku soo daabulayso gudaha deegaanada Puntland kana soo dejinayso garoomada. sidoo kale waxaan digaynaa inaysan diyaaraduhu soo qaadin hub sharci darro ah. diyaaradii soo qaadana wixii soo gaara ayadaa ka mas'uula. war-saxaafadeedkan kulankiisu maanta intaasu ku saabsanaa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala hay'adaha amniga jooga dhammaan xuduudaha Puntland iyo dhammaan dalka inay waajibaadkooda gutaan. aad iyo aad baan u mahadsantihiin waanan u hambalyeynaa dhammaan ciidamada Puntland qaybaheeda kala duwan ee ku hawlan sugidda amniga iyo kala dambeynta. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha 6 2026 waxaan rabaa halkaan inaan ku qabto shir jaraa'id oo kooban oo ka hadlaya imaanshahaygii iyo duruufaha iyo xaaladaha dowladda Puntland ay marayso. waxaan ku bilaabayaa maalintii aan imi oo Isniinta waxaa magaalada Garowe kontaroolkeeda ka dhacay fal dowladnimada aan ku fiicnayn mas'uuliyadana aan ku fiicnayn oo lagu sameeyay nin siyaasi oo reer Puntland Maxamuud Mashruuc ilaaladiisii. ilaaladaas oo ahayd ilaalo nabdeed u soo socotay magaalada caasimadda ah ka timi magaalada Carmo soo socotay ilaa 380 kilomitir oo Puntland ka mid ah baa waxaa lagu sameeyay ishortaag iyo xabad lagu bilaabo. waxaan cambaaraynaynaa falkaas oo ah fal daandaansi iyo xaalad abuur ay ku sameynayso dowladda Puntland Siciid iyo ragiisu ay ku sameynayaan xaalad abuur iyo daandaansi cusub ay ku sameynayaan. falka oo cambaaraynaynaa ciidankaas oo la garanayo ciidanka waxay ahaayeen ciidan taariikhda Puntland ku soo jiray. waxaan garanayaa inuu ninka watay guri baa la yiraahdaa ciidamada daraawiishta Puntland buu ka mid ahaa. raggii calmiskaad buu ka mid ahaa. raggii buuraha galgala iyo dindigle aan ugu tagnay oo dagaalamayay xilligii shabaabka lala dirayay buu ka mid ahaa. haddii ay soo baxeen baabuurtaasi waxay soo mareen dhul aad u tiro badan oo Puntland xukunto. markii ay yimaadeen waa la maareyn karay intii la istaajiyo maxaa rabtaan saasaan nahay ilaaladiina waa badantiin qaybtaan ha gudubto qaybtaan ha noqoto waxay ahayd wax la maareyn karo. mas'uuliyadda waxaan ku cambaaraynaynaa laamaha amniga dowladda Puntland oo mar walba bixiya amar ka yimaada Siciid amarkaasoo noqdo amar aan munaasib ahayn. waxay muujinaysaa awal nimanka siyaasiyiinta reer Puntland istaafyada ay wataan macnaheedu wuxuu ahaa
maadaama raggaan kulligood dalka usoo shaqeeyeen oo Daesh iyo shabaab dagaaladooda ay ka qayb galeen ilaalin ay iska ilaalinayaan cadowgaas bay ahayd ee ma ahayn ilaalin ay iska ilaalinayaan ciidanka dowladda Puntland laakiin hadda waxaa muuqata in Siciid go'aansaday inuu taageereeyo ragga siyaasiyiinta ah oo ka soo aragti duwan waxa dhacaysa niman staff wadan inuu staff qaato kiin dhacdadii shalay isniintii dhacday waxay noqotay dorhad dhacdo tusaysa ragga siyaasiyiinta ah nooc cusub oo Siciid rabo inuu laayo ragga siyaasiyiinta ah qodobka intaas aan leeyahay qodobka xiga waxaa jira buuqyo iyo qaylo Siciid siyaasad xumadii iyo xaaladii uu dalka Puntland gaarsiiyay uu ku daboolayo waxa la leeyahay rag baa waxay ka yimaadeen xamar waxa la duminayaa Puntland ciidamada waxa laga qorayaa Puntland warka hadaa mar tiraahdid in aad mar labaad tiraahdid ma fiicna ciidamada Puntland laga qorayo sharci dastuuri ah oo dastuurkii 12kii la ansixiyay awoodaha dowladda federaalka ay leedahay inay ciidanka xooga dalka ka qorto qodobkaas dastuuriga ah baa siinaya dowladda federaalka inay qorto ciidamo ma iyada dowladdu faraha la soo gashay oo tiri ciidamaan qoraynaa oo shaqadan bilowday mise waxay ku timid duruufo hadda ka hor aan sheegay labadii ciidan oo ugu muhiimsanaa Puntland oo dagaaladii aad ogeydeen oo taariikhiga ah oo Puntland soo maray labaduba soo maray Siciid wuxuu ka joojiyay mushaharkii iyo raashinkii dowladda federaalku waxay waajib ku ah ciidan kasta oo awood leh oo reer Soomaaliya ah ciidamadaas ugu horeeyay ciidan dowladda federaalka ay mushahar siisay haddana ma siina 8 bilood in ka badan bay mushahar qaadanayaan laakiin labada ciidan wax dhiba ma aysan sameyn haddana ma sameynayaan waxaan ummadda reer Puntland u sheegaynaa inaan ciidamadaasi duulaan Puntland ku ahayn dhibna wadin waxaan kale ummadda reer Puntland u sheegaynaa inaanan anagu Puntland duulaan ku ahayn dhibna wadin waxaan aaminsanahay oo ogahay inaan Siciid iyo ragga la shaqeeya Puntland aan oga turid badnahay ugana naxariis badnahay taariikhdeedii asaaskeedii iyo jiritaankeediina aan ahaa dadkii joogay intii aan shaqeynayayna inaan Puntland wax taro maaha inaan wax yeelin markhaati waxa ka ah ummadda halka joogta 3 bilood raashinka ciidamada daraawiishtu ma aysan helin mushaharka 4 bilood baa ka maqan shaqaalaha dowladda mushahar in dhaweyd ma aysan arag dalka duruufihiisu waxay marayaan meel aad u hooseysa Siciid wuxuu rabaa waxyaabahaas taagan inuu ku mashquuliyo inuu dhaho dadka waxa leena kaga soo duulay xamar Siciid xamar horay buu u tagay hadeerna wuxuu rabaa inuu aado waxa la yaab leh waxa shalay la socday niman saaxiib nahay oo Siciid xamar u diray oo siyaasadda uga qayb galayay siyaasi Siciid ka aragti duwan ama sarkaal Siciid ka aragti duwan waa dambiile dalka dambi ka galay siyaasiga Siciid la socda oo xamar jooga oo siyaasadda ka qayb galaya oo mudaaharaadada xamar ka dhacaya wax ka wada waa muwaadin sax ah oo reer Puntland oo xaq ah haddii ay qabato ragga siyaasiyiinta iyo saraakiisha reer Puntland oo Siciid iyo raggiisa uga leexay jeclada badan idinku Puntland darin ma ahidin annagu waa ahay ninkii siyaasiga oo xamar ka yimaada Puntland buu duminayaa ninkii sarkaala oo xamar taga Puntland buu duminayaa laakiin kuwa anigu aan geesto oo taga oo ka shaqeeya iyo aniguba dambiilayaal ma lihina hadday gar tahay dadka shacabka reer Puntland baan u dhiibaynaa waxaan kale u dhiibaynaa Siciid budget supportiga dowladda federaalka waxay ku soo dhacday akoomada dowladda waa la qaataa dowladdu waa qaadataa dambi ma aha ciidanka mushaharkiisu u soo dhacayo dambi weeye oo qalad weeye sarkaalkii xamar ka qaata lacag dambi weeye dalka ma soo gali karo waa la dirirayaa lacagta dowladda federaalka ay siiso ciidamada Puntland ma waxtar bay u tahay Puntland mise waxyeelo
waxay u tahay waxtar sida lacagta kale oo aanan waliba xisaabteeda la ogeyn meeshii odagu geeyo ay waxtar ugu tahay oo calaalaqal hadduu xitaa isagu qaato ay Puntland qaadatay ciidamadan waxtar bay u tahay waxbay ka bedeshaa maalinta aanu garawaan joogaaye ay lacagta dawladda federaalka ciidamada u soo dhacdo magaalada waxbay ka bedeshaa deeman baa la bixiyaa shaahiya la cabaa askarta ishaxaada waa waxtar weyn siyaasadda iyo kala aragtiduwanaanta Puntland siyaasiyiinta dawladda Saciid Cabdulaahi Dani ka soo horjeeda ma aha duulaan Puntland lagu yahay ma jirto duulaan Puntland dawladda federaalka ay ku tahay waxa dawladda Puntland duulaan ku ah Saciid example yar baa inoo soo qabanaya shalay wuxuu galay dagaal dastuurka uu ku bedelayo 32 qof baa ku dhintay laba cali isma weydiin maanta wuxuu yiri wixii iyaantii hore aan bedelay waa ay cuntami waayeen kuwaan hadda xilliga soo socda aan ay cuntamayn sida daraadeed waa in haddana maanta la ii bedelaa gudoomiyaha baarlamaanka nin dhalinyaro ah weeye uu joogay xaaladii ka dhacday Puntland markii dastuurkii hore la bedelayay dastuur aan raali la isaga ahayn oo lagu qanacsanayn oo aan heshiis lagu ahayn wadanka ku burburin baan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka Saciidna laba awoodood oo kala madax bannaan oo sharcigu kala madax banneeyay oo mas'uuliyadu kala madax banneysay oo xitaa Puntland markii la yiraahdo goboladu kala madax banneeyeen baa tahay awood baad leedahay awoodaadu waxay tahay amniga dalka inaad ilaalisid qaybtaada ilaalisid awoodaadu waxay tahay sharciga dalka inaad qaybtaada ilaalisid awoodaadu waxay tahay wixii dib ka imaanayo in aad ilaalisid gudoomiyaha baarlamaanka intaas aan leeyahay ciidamada dawladda Puntland waxaan leenahay annagu waxaan nahay raggii Puntland u soo shaqeeyay hadda waxaan u taaganahay annagu waxa weeye mucaaradada Saciid aan dhaliishiisa sheegayno iyo Puntlandna waa kala duwan yihiin Saciid 5 sano la doortay inta uu hartay waa la og yahay isaga dalka iska burinaya dabacadihiisa iyo waxa uu ku dhaqmayo baa keenaya inuu dalka iska buriyo waxa keenaya wiilasha la shaqeeya oo mushaharooyinkii iyo gunooyinkii ka waayay oo provocation iyo xaalad abuur kaliya wax kaga qaata xaalad abuurka ay sameynayaan magaalada Garowe hadda wax dhibo ka jira ma jiraan meel walba waxa laga dhigay ciidan meel walba waxa yaala baabuur ciidan ah waxa imaan kara dad meesha iska marayo sidii shalay dhacday oo kale staff ah iyo ciidamadaas inay isku dhacaan waxa imaan karta dhimasho waxa imaan kara dagaal aan lagu talagelin oo bilaama Saciid waxaan leenahay dalka dib aan adiga ahay kaba jidhe provocation-ka wiilashaadu ay wadaan dalka ka joojiya magaalada Garowe hadda anigu aan joogo wax dhibi ma jiraan magaaladan dhex maraa anigoo bila staffan socdaa shida kama jidho magaalada degan weeye magaalooyinka kale intaas oo kale weeye ciidamada dawladda federaalku ay mushaharka siiso horena waa u sheegay hadeerna waa u sheegay waxtar ma aha Puntland wax yeela kuma aha siyaasadda lagu kala aragti duwan yahay oo dawladda federaalka iyo mucaaradka iska soo horjeeda xamarna waa ka jidha halkaana waa ka jirta xamar waxa jooga mucaarad Saciid ay daqiiqadu hadlayaan kana soo horjeeda dawladda federaalka halkaana waxa jooga siyaasiyiin aragtida dawladda siyaasadda iyo aragtida dawladda federaalka oo ah wadanka in qof iyo cod la gaarsiiyo aragtida dad qaba jira aragtida dadka qaba dambiilayaal ma aha aragtida kale oo ah doorashadii dadbaneed ha lagu noqdo ragga qabaana sax ma aha waa laba aragtiyood isjiid baa jira marka dambe waxa la isugu imaan doonaa meel dadka ummadda Soomaaliyeed danteed iyo maslaxadeed ku jirto labada aragtiyood baa dalka ka jirta Saciid waxaan leenahay dalkii waxaad ka dhigtay meel kaliya Saciid oo xukuntid waxa taladii aad ka maroojisay xitaa golahaaga wasiirada waxaadan la tashanayn siyaasiyiinta ka aragti duwan waxaadan la tashanayn culimadii waxaadan la tashanayn ganacsatadii waxaadan la tashanayn isimadii dalkaani wuxuu ku soo mooday talo iyo wadajir iyo in la isku naxariisto sidaa daraadeed waxaan leeyahay ummadda reer Puntland oo aan tiradooda sheegay inay iyagu Puntland u naxaan ilaaliyaan Saciid iyo duruufihiisa iyo marxaladaha uu ku jiro lala noolaado oo lagula noolaado sidii dalkaas isagoo nabadgeliye iyo dhib la'aan ah waqtiga Saciid u dhamaan lahaa waxaan mar labaad ugu baaqayaa ummadda reer Puntland anuu Garowe imi
garowana shiddo kama jidho anna shiddo uma wado rag kale oo shiddo u soo wada Puntlandna ma garanayo mase dhacayso hal qodob anugu xamar waa tagi karaa lama tagi karo anugu ragga aan mas'uuliyadda u dirsanayo xamar waa tagi karaan ragga kale ma tagi karo anugu saraakiil haddaan xamar u dirsado waa tagi karaan saraakiisha kale ma tagi karto dastuurka markaan doonaan furanaya laygama hadli karo kii dambaan soo cishanaya laygama hadli karo shaqaalaha dawladda hal sano mushaar ma siin laylama hadli karo ciidamadu intaas oo bilood mushaar iyo bahalkii maarag laylama hadli karo qof bini aadana oo intaas dhahaya meel ay ka dhici kartaa ma jirto cid walba oo dalka mas'uul uga tahay waa la hadlaya dhaliilheedan waa la sheegaya dagaalka ay ciidamada aad garow dhinacyadeed ku goynaysid waxa kaaga baahan cilmiskaad inaad geysid waxaad kaaga baahan cilmiskaad inaad geysid aad iyo aad baa mahadsantihiin shacabka reer Puntland waxaan ugu niyad samaynayaa wax duulaan siciid ka weyn oo Puntland haysta inuusan jirin annaguna aanu nahay rag reer Puntland asaaskeedii joogay u soo joogay hadda u sii joogi raba hadii ilaahay idmo awal uga turid badnaa hadda uga turid badan waxa siciid samaynayo hadda waxa siciid samaynayo waa uga turid badan nahay Puntland sida la wada socotaan mabda Puntland lagu dhisay waa mabda dhexdhexaadnimo ku salaysan mabda diidan in awoodda lagu ururiyo hal meel oo horseedi karta kala talisnimo isla markaana diidan kala goynta iyo burburinta midnimada dalka mabda'aasi waa federaalka laftiisa in la ilaaliyo wadajirka qaranka iyo hay'adaha qaran ee Soomaaliya wada leedahay halka dhinaca kalena bulshooyinku si dimuqraadi ah isu maamulaan kana helaan adeegyada dawladnimo ee laga maarmaanka u ah horumarkooda hirgelinta mabda'an Puntland waxay gelisay dadaal iyo nafuurnimo badan siyaasiyiin ismada dhaqanka iyo guud ahaan bulshada reer Puntland waxay door muuqda ka qaateen xaqiijinta himiladan sanadkii 2004 markaas oo la yeelay dawladdii ugu horeysay ee ku dhisan nidaamka federaalka inkastoo nidaamkii federaalka la hirgeliyay haddana markasta waxaa jiray aragtiyo iyo xooga ka soo horjeeday Puntland waxay had iyo jeer ahayd goobta laga difaaco laguna dheelitiro isku day walba oo lagu doonayay in dib loogu celiyo nidaamkii dawladda dhexe walaalayaal dhaawaca ugu weyn ee maanta soo gaaray midnimada ummadda Soomaaliyeed wuxuu ka dhashay siyaasad ku salaysan aragti gaabni awood maroorsi xukun jacayl iyo dana gaar ah hoggaanka federaalka ee madaxweynaadkiisu dhamaaday wuxuu si cad u wiiqay tiirarkii ugu muhiimsanaa ee federaalka dalka oo ugu horeeyo dastuurkii dalka oo dhamaystirkiisa aan loo marin wada sax ah waxaa intaas dheer faragelin iyo cadaadis gaarsiisan duulaan ciidan oo lagu qaaday dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka sida dhacdooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ciidanka lagu weeraray Raaskambooni iyo Baydhabo maxaa loogu xoreyn waayay wadada u dhaxaysa Jowhar iyo Xamar ee madaxweynuhu diyaaradda u kala raacayo arrintu intaas kuma eka hoggaanka dowladda federaalka ahi wuxuu si xawli ah ku wadaa qorshe lagu wiiqayo ama lagu baabi'inayo awoodaha dowlad goboleedyada Puntland iyo shacabkeeda waxay u arkaan caqabada ugu weyn ee hortaagan waxa madaxweyne xasan diidan yahay waa dheelitirka Puntland ee dowlad dhiska Soomaaliya oo nidaamka federaalku kow ka yahay xasan sheekh ma kala jecela mucaarad iyo muxaafid Puntland damiciisu waa inuu meesha ka saaro dowladnimada Puntland aynu noqono tuulooyin iyo jifooyin hub isku haysta damacaas gurcan walaalayaal waxaa fududeynaya laba kooxood kooxda koowaad waa hoggaanka Puntland ee talada haya kaas oo ka leexday jidkii saxda ahaa dayacay mas'uuliyaddii loo igmaday dhaawacay wadajirkii bulshada
isla markaana dowladnimadii ka dhigay aalad lagu gaaro dana siyaasadeed oo gaar ah. in madaxweyne xasan sheekh maanta wiilasheennii dalka u soo halgamay iyo qalabkoodii la wareegayo uuna rabo inuu isla wiilashageeda isku laayo waa dayac iyo dembi aad u weyn. eedda koowaadna waxaa iska leh madaxweyne Siciid Deni oo aan mudnaanba aysan u lahayn gudaha Puntland, qalbigiisii iyo maskaxdiisiina ay kursi xamar yaala jirto. kooxda labaad waa cid walba oo aysan u kala soocnayn Puntland dowladnimadeeda iyo xumaanta hoggaanka talada haya, kuwaas oo xasan sheekh ka caawinaya damiciisa ku racan ama ha ogaadaan ama yaysan ogeyn. haddaba shacabka reer Puntland waxaan leeyahay kuma khasbanidin inaad kala doorataan lama xumaanood. waxaynu nahay bulsho leh taariikh, awood, karti ay ku diidi karto xumaan kasta oo gudaha iyo dibadda kaga timaada. waa in aynu si geesanimo leh uga xisaabtanaa hoggaan xumada, dayaca iyo khaladaadka ka jira gudaha Puntland, isla markaana aynu si midaysan uga hortagnaa damaca guracan ee hoggaanka federaalka inooga imaanaya. labaduba waxay wax u dhimayaan nidaamkeena dowladnimo iyo mustaqbalkeena. haddii aynaan ku dhiiran walaalayaal inaynu saxno khaladaadka gudaha, mar walba waxaan u nuglaanaynaa faragelinta iyo damacyada guracan ee bannaanka inoo ka imaanaya. siyaasadda anigu aan aaminsanahay waa mid ku dhisan silmi iyo aragti, mid ka baraxan xoog iyo xabad. waxaan aaminsanahay Puntland mid ah, loo dhan yahay, nabad ah, xasiloon, horumarsan. waxaana ku gaari karnaa midnimo iyo isla xisaabtan. gabagabadii waxaan bulshadeeda reer Puntland ugu baaqayaa inay ilaashadaan nabadgelyadooda, wadajirkooda iyo xasiloonidooda, isla markaana aysan qof xil haya iyo mid aan hayn toonna ka ogolaan inuu sabab u noqdo qalalaase, colaad ama khalkhal ku yimaada nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankeenna. intaas kadib walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibtii ka dhacday ari caddeeye. in allaale intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto. dhibaatada halkaa ka dhacdeena ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaas ku ekeeyo. waxgaradka iyo dhaqanka iyo cid walbana waxaan ugu baaqayaa inay afqabtaan oo dhib kale aysan dhicin. dhammaantiin walaalayaal mar kale aad iyo aad baa u mahadsantiin. asalaamu calaykum.